su'aasha ugu dambaysa gabadh baanu sheekaysanaa dabcan guur baa dee laga sheekaysanayaa marka gabadhii kulankeeda aan wada kulmayna maxay diintu ka qabtaa gabadha kulankeedu haddii uu yahay inaad iska soo eegto waa sharci iyadoo shuruuddii sharciga la ilaalinayo waa sunne waa sharci gabadha la guursanaya in la iska soo eego oo dee way dhacdaa wayna bannaan tahay qofku gabadhaanu arag in la siiyo dabeedna uu sidaa uu ku aqbalo ku nasiibsado laakiin waxaa sunno ah oo nebigu inoogu yeedhay haddii qofku uu gabadh guur ka doonayo inuu iska soo eego marka kulanku hadduu yahay iyadoo dadkeedu uu la joogo ama dad kale la joogaan uu gabadhii intii loogu talagalay uu ka arkayo joogeeda wejigeeda qacmaheeda ya wuxuu dee gabadha quruxdeeda ku ogaanayo sharcigu waa u ogoliya kulankaasoo kale waa loo ogoliya dee kaasina maaha habeen walba maaha hudheelada in laga casheeyo maaha in la isla safro maaha in la isla saamalaylo maaha in la wada caweeyo maaha mar baa ku filan gabadhii inaad ka bogato intaha almawduuc laakiin kulamadan joogtada ah habeen walba jimco ah 2 sano 3 sano la soo wada cashaynayo waa fasaad wey sharciguna waxa weeye ma ogola marka dambana dee waxaa ka dhalanaysa wax aan la mahadin baa ka dhalanaya gabdhahan waxaan dee hadda aadka u batay la isku asturayo ilaahay baa ina kala asturay wax la soo koobi kara ma farahay ka bax way iska sahlanaat uu faraxumeeyay baa la odhanayaa ama qacan baa kaga dhacday inan ya way macaanaynayaan markay xadkii ka badatay odaygii caaqilka ahaa waa iska caadi maalin walba waa loo yeedhay marna inan qoyskiina abaa gabadh faraxumeeyey marna inantii baa la faraxumeeyey waa iska mashaariicda socota wey inta badan gabdhuhu ogaada ilaahay u abuuray dumarku naftooda waxay u dhiibaan qof ay jacayl la wadaageen way adag tahay gabadh halkaa iska joogta qofku intuu la hadlo markiiba inuu ka zinaysto aad bay u adagtahay laakiin ninku inuu iska wado cidduu helayaba haddii iimaankiisu daciif yahay waa u fududa gabadha xitaa iimaankeedu hadduu daciif yahay ilaahay xishood buu ku abuuray si fudud wax lagagama helo marka waan ku guursanayaa waan ku jecelahay waan isku fogaanay muddaan la wadayaa dabeedna marka dambe aynu istijaabinu odhanaya ama aynu xoogaa wax sii wadno sidaasaa laga yaaba gabadha inay ku uraysato dabeedna xumaan iyo ceeb marka dambena waxaaba laga yaabaa kii 2 sano maaweelinaya inuu ka dhaarto musxafka qur-aankaa ku dhaarto oo uu ku halaagsama laga yaabaa waxaasoo dhan waxaa keenaya kulamada badan ee lagu tawasucayo gabdhahana waxaan leeyahay ninka wanaagsani hadduu ku doonayo markaad uu kula kulmo aad 2-3 cisho isbarataan dee ehelkaagu u imanaya oo uu ku ilaashanaya ku ilbixin maayo 5 sano markuu kuu sheekeeyo guryo badan baa ku duma markuu 5 sano 3 sano u sheekeeyo wax walba uu kula hadlo yana ay xabiibida gurayso maalintuu aroosto telefoonkeedu daba taagay waayo wuxuu isleeyahay adoo aan qabiil bay dhowr sano waxa kula hayday tolmo mid kale khadka ku jira wiswaas iyo shaki iyo hinaasa bilaabmay dabadna waxa laga yaabaa guriga inuu ku dumo dhibaatooyin badan baa xitaa mustaqbalka ka dhalanay marka gabdhuhuna raguna waraabayaal bay isaga badan yihiin inay iska ilaaliyaan oo ay sururiyaan bay u baahan yihiin insha Allah ta'ala